guulaha laga gaadho nolosha qaarkood waxaa ku ladhan imtixaano iyo qodxa adag oo ay wajahaan shakhsiyaadka guulaystay kuwaasoo laga baran karo casharo tusaale u noqon kara dad badan oo nolosha iska dhiibay. Jaamac Cilmi Nuur waxa uu ka mid yahay ardayda fikta sare ka jooga hayaanka waxbarasho ee Jaamacadda Hargeysa, gaar ahaan ardayda sanadkan sugaysa inay ka qalin qortaan kulliyadda management-ga. Waa arday ka duwan dhammaanba ardayda jaamacadda ee qalin jabinaysa. Waa dhagool aan waxba maqal, ha yeeshee ay ka go'an tahay inuu guul ka gaadho nolosha, tartan adagna la galo filkii. ninkan jaamac waxa uu dugsiga hoose ka soo baxay magaalada Boorame, kadib uu Hargeysa u soo wareegay dugsiga sare ee biyo dhacay buu ka qalin jabiyay, taasoo markaas uu galaas ahaayeen arday aan maqalka marka naafo ka ahayn iyaga oo aan maqalkoodu kala dhinnin ayuu la galaas ahaa. kadib waxa uu soo wareegay Jaamacadda Hargeysa oo uu ka mid yahay ardayda hadda qalin jabinaysa ee imka qalin jabinta u diyaar garoobaysa. kadib fakalka uu qaatayna waxa weeyaan management. intaasi kadib waa qof nolosha hami badan kale. waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid ah arday ay galaaskooda ay la soo xiriiray, gaar ahaan hablo. kadib waxay damceen inay geeyaan xaaladiisa ay caafimaad la raadiyaan markaas. kadib waxay geeyeen dhakhaatiir badan oo Hargeysa ah. dhakhaatiirtii hablihii rajadoodii ahayd in jaamac wax laga qabto may suurtogeli. waxay u sheegeen in dalka dibaddiisa Hindiya amba Sacuudiga wax lagaga qaban karo, isla markaasna uu ku qaangaaray xanuunka markaa dhaga tiray uu muddo badan u hayay macna. kadib adu rajabeel kadib hablihii waxay damceen in ay la raadiyaan xaaladda caafimaad dalka dibaddiisa, balse uu suurtogeli weyday. dhaqaalahooda markaas yara way suurtogeli weyday. jaamac nolosha rajo badan buu ka leeyahay. Faadumo Maxamed Xasan waa hooyada dhashay Jaamac. waxay suuqa uga xoogsataa yoomyaha maalinlaha ay ku nool yihiin qoyskoodu. walow aanay haynin shaqo buuran, haddana waxay qanaaco buuxda ku tahay keeryoon ay ku dul iibiso muuska iyo liinta. xanuunku horta wuu ku dhashay nankan. wuu ku dhashay xanuunka. wuu ku dhashay ku dhashay maxaa dhahdaaye inaan intaa uu ku dhashay intaasoo ku leegaaday. laakiin dhagihiisu haddana yar khafiif bay haayeen, moogta khafiif ayay haayeen. laakiin dhigalaanta wuu iska dhashay in yaray khafiif haayeen. markii dambe laakiin wuu ku sii yara siyaado de waa ka imika dhigalaan bilaabay. dhigalaantu waa taasoo de saas ugu socdaa. waxbarashadiisa wuxuu bilaabay kaale arag gud bay ahayd maalin muu leexan Boorama isagoo ulaa baa la geeyey. isagoo ulaa ah ayaa Boorama la geeyey. markii la geeyeyna wuxuu kaga soo baxay wuxuu kaga soo baxay aydkii ma kaga soo baxay biyo dhacayna wuxuu kaga galay 4 sano ku jiray oo secondarygiya uu dhameeyay. guriga si fiican buu kaga soo baxay. haddana tanaan u gudbinay jaamacadina waa ka daymanka idinku ba arkaysaan oo uu ka soo baxay oo uu dhameynaya daha waa ka imika gabagaba ah. marka maalin muu leexanay. barashadiisuna waxay ahayd kaale aragtay gud bay ahayd gud. bal ka waran nolosha qoyska iyo sidii wallahi nolosha qoyska de waxaanu hay iska dadka dan yartaa baanu hay iska dan yartaa ayuun baanu hay. waxaan iliyana waa idinka arkayo de maxaa dhahdaay inta yar keeryoonkaas ma ku meermeeraaw keeryoonka ayuun baan inta yar ku meermeeraa. inta muuska ma wax kale may wallahi waxaas baan iibiya. fiidkina waan ka caraaba, salaadana waan iibada, intaas baan iibiya. nolosha horta waa taa soo maydaan garan. maxaa dhahdaay guriga de markaan joogno gurigana waa bihii goormiina ka geeriyo. bihii 7 sano uu mootay. 7 sano uu mootay. ka wixii qarashadan aanun ba horta la dabaasha. wixii kolba qarash yimaada qarashkiisa aanun ba la dabaasha. waxaas baan ka naanaabiyaa. wax kale meeliga ma yimaadaan. qof kale meel kale igama caawiyo. waxaas baan la dabaasha. Axmed Cabdi Cumar waa gudoomiyaha ardayda jaamacadda ee fasalka uu dhigto Jaamac. waxaan kala sheekaystay doorka waxbarasho ee Jaamac iyo siday ka arday ahaan ula dhaqmaan maadaama uu yahay arday ka duwan ardayda kale. ka arday ahaan wallahi horta waxaan ula dhaqanaa si aanu ka duwan si arday kale, maadaama ardaygan yahay arday dhagaha naafaka oo culays badan waxa ka haysto. waxaan ula dhaqanaa sida ugu ixtiraam badan waliba ka kala saano gudoomiyahan markaan ka hadlayo.
waanu soo dhaweynaa imtixaanadii kale waanu kala shaqeynaa hadday noqoto wixii maxay ahayd caawimaad u baahan yahay kale wallahi sida ugu wanaagsan ma oran karaa oo uga qayb qaadanaa waxbarashadiisa alxamdulillah maantana wuxuu marayaa stage-kii ugu dambeeyay qalin jabintii baa noo harsan guul weyn baan u arkaa insha Allah kalaaskii markuu fadhiyo dabcan waan sheego laba mid ah ardaydii kale waxa dhacaysa inuu fahmi waayo macalinkan waxaanu ka hadlayba daad soo xisaabataa tan inuu ay noqoto inuu macalinku markuu casharada kala sharaxayo inaanu anagu hadhow ka dabageyno oo rikaabaan u samayno oonu u sharaxno wixii uu fahmi waayo intii kalena waana arday fiican runtii oo dadaal fara badan u sameeyaa tusaale haddaan soo qaato marka la bixinayo lacagtan fiiga oo kale waxa dhacaysa inaanu ardaygaasi la macaamili karin ciddii staafka jaamacadda ahayd ee fadhiday qaybta finance-ka caqabadu markay timaado gudoomiyey kalaaska anay hawshaasi saaran tahay waxa dhacday inaan maxay ahayd aan tago fiigiisoo payment soo sameeyo records oo kale tusaalahan kale aan ka qayb qaato wixii uu baahnaa maadaama qofkiis tusaalahan kale maalmaha jaamacadda inaan anagu yeedho waxaasoo kale jira maanta imtixaankaasaad gelaysaa waxa ardayda kalena runtii waa la mid oo way la dadaalaan way la qabtaan waa maxamed andar MMTV magaalada Hargeysa